بسم الله سلام الله سو dhawaada asxaabta qaaliga ah ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaantiin maasha allah waxaa noo soo dhammaaday bishii Ramadaan ee barakeysnayd dabcan waxayna ahayd bil aad u qurux badan dabcan laga wada faa'iidaystay maasha allah haddaan nahay ummad islaama haddaan usoo laabto suuqa isbuucii dhaweyd maasha allah lacagaha qaar way dhaqaaqeen lacagii isbuucii dhaweyd aan sugaynay waxay ahaayeen fayraska aan washgaraynayni fayraska halka taxan maasha allah lacag aad u qurux badan waxaan rajaynayaa inaad dhammaanteed aad yani ka faa'iidaysteen haddaan bilaabo anoo soo koobiya dabcan lacagihii isbuuca siday xaaladooda ahayd qaababkii looga faa'iidaysan karay iyo waxaas anoo ka hadlaya waan ku bilaabo lacagta NZD/USD dabcan aniga oo eegaya qaabkan u forecasting gareeyay bal qaabkii inay u dhacday inay qaab kale u dhacday bal aan wada eegno insha allah lacagtan waa NZD/USD aan bilaawno insha allah bal lacagta laga rajaynaya sidoo kale waxay kaloo samayn kartaa wax la dhaho lacagtani in ay halkan dabcan ay correction gasho kadibna ay soo dhacdo lacagtaasi qaab noocaas halka samayso kadibna all the way ay soo dhacdo ay timaado online toolkan haddaan ku tuso because structurally bay dib ugu laabto jaartiga waa kana qaabkaa ka hadlaynay dabcan maxaa dhacay qaab structure dhacay maxay samaysa wax laho haddaad eegtid sida taabashay samaysa kadibna all the way jibintii baan kasoo qaatay masha allah waxay soo dhaqaaqday ilaa ugu yaraan ilaa waxay soo dhaqaaqday ilaa 3%, 3.something% ay soo dhaqaaqday kadibna all the way way laabatay sababta u laabatayna haddaan inii sheego halkan ay structure ka samaystay structurekan bay samaysay kadibna all the way testkan dama ku dhacaya baan ujeeday laakiin maanan qaadan because sababtaan u qaadan waxa weeye inkastoo ay halkan ay soo jebisay wax laho basketing wax laho tracekii structurekan kadibna structure dhacay laakiin maanan qaadan oo holiday waan iskaga jiray dabcan lacagtaasi waa lacagtaas iyadana lacag aad u qurux badan bay waxaan ku iri ka eego haddaad dib ugu laabto u tagtay wax laho maxaa lahaa the above here soo qaado canvas ka qaado canvartan saar maxaa la halkan structure ku tagtay dabcan iyadana waad ka qaadan karaysaa wax laho haddii ay ku disho dabcan ay lacagtan la kala wareejiyo structurekan means waa structure ascending waan ka wada macna mar wali waana taqaanid structure qaabku u dhaqmayo oo aad u qurux badan wata color confirmation يعني multi-touch identification sidoo kale waan ku sharxo waxa laho multi-identification kuwa saddexda taabasho ay samaysay qaab structure ay ku jibisay waxa laho double topkii kore 1 hour retrace candle ay samaysay momentum leh retrace dama ay samaysay dabcan dadka qaataydna maasha allah way ka faa'iidaysteen kankii ka qaataydna way ka faa'iidaysteen dabcan lacag aad u qurux badan bay ahayd iyadana wataas qaabkaasaan uga faa'iidaysanay dabcan waxaan mar waliba aan ku hadal time waxa weeye qaabkan aan ugu focusing gareeyo inaad mar waliba aad u eegtid dabcan because qaabka badana aan logically ay u dhaqaaqaan lacagaha badankood okay haddaan eego lacagta ku xigta dabcan lacagtani waxay ahayd lacag ka mid a lacagihii isbuucan looska bixinayay waayo structure waxay samaysay waxa laho qurux badan haddana all the way way soo laabatay iyadoo ku samayso wax laho waana tegi doonaa kadibna all the way ay lacagtani ay sii dhaqaaqdo dabcan idina qaabkaas laga rajaynay waayo haddaad eegtid wax laho head and shoulder iyo fartada ku jira meeshan cadaanta waxay means dhaqaaqan heerka soo samaysay dhaqaaqa ay bartan ka samaysay means dhaqaaq leeg bay samayn karaysaa dabcan iyadana watana waxaan qaabkan u falanqaynay marka hore qaabkeygii structurally qaab structure expanding samaynaysa dabcan continuation aan ka sugaynay dabcan waayo iyadoo joos waxa laho structurekii guud haddaad eegtid trailinka awalka hore xaggan u saarnaa dabcan markii dambe aan update ku sameeyey dabcan haddaad eegtid haddaad kasoo qaadid kana hala ka saartid
okay kan xaggan saartid maxay ahayd waxaan ka sugay wax laho inay retrace samayso clearing bars bay samayso dabcan all the way intaan ka qaatay laakiin maxaa dhacay all the way inay lacagtii soo kala wareegtay markii xoogaa socotay maxaa dhacay in ay soo kala wareegtaa dhacday waayo waxay soo socda loo taabo short structure aad u qurux badan maxaa dhacay all the way way soo kala wareegtay xagee laga sugayay meeshan inay qaab correction ku timaado laakiin bars bay ku timaaday all the way waa la jebiyey maxaa dhacay wax laho structure dhacay another structure kale way baa dhacay all the way lacagtii down ay jebiyey maxaa dhacay structure kii wuu isbedelay waayo waxaa la jebiyey wax laho trailingkii jebiyey means waxay ku cadaynaysaa waxa weeye ama tani waxay ku cadaynaysaa waxa weeye ku cadaynaysaa markii la jebiyey halkan lacagtani ay abdamaaysa siyaaday okay maxaa dhacay inaad qaab noocaas samaysaa dhacay okay aad expanding kan aad samaysid in aad soo dheeraysid dabcan xagee keenaysaa ilaa halkan keenayso okay kana saa u dhamaystir okay okay maxaa sugnay all the way structure kan tirina waayo structure kullamaad soo qaabreed samaynaysa waa kullama structure la buuxdo kullama structure la buuxdo wax meelna kuma soo kordhinayso waxaan soo qaadanay wax laho trailing halkan waa same means double bottom way because we can soo xiraysaa hadaa meeshaa dhigatid waa iska caadi okay bartaan dhigo waxaad aragtay all the way la yimi structure haa lagu yimi haa lagu yimi qaab structure yaa lagu yimi waa la jabsaday jibintaas baan ka galay okay xagee dhigtay below here aan dhigtay maxaa dhacay inay hadda sii ordayso adiga waxaan qaatay maxaa ku dhacay si fiican kugu muujiyo ba adixan dad badan u jeedo waxaan aan arkayn ba si fiican u arkayn okay dad soo qaadi bartan structurally kana soo qaad bartankeen dad trailing kala soo qaad bartankeen jebinta bartaba below here dhigo like 50 5 okay kan rejection meeshan kaga baxay ujeeda cadxanta waxaa dhacay in lagu soo laabto xoogaa kadibna all the way la yaaci doono okay all the way la yaaci doono targetkeeda xagee noqonayaa targetkeedu wuxuu noqonayaa here oo double top insha allah iyadana qaab intaas intrigaasi bixisay oo lacag aad u qurux badan bay ahayd iyadana zaaid u qurux badan masha allah hadda ordaysa wax laho ilaa ugu yaraan adiga 49 p half 100% ordaysa iyadana lacag aad u qurux badan bay hadaan u gudbo lacagta kaloo xigta kadib mini double dhulka hoose ay ku timaado qaab correction dabcan kadibna all the way la buy gareeyo ama inay halka ku timaado qaab correction ilaa adiga wax ku dhow 25 p dabcan dabcan structure kiisa ma soo jeeda hadda maxaa laga sugayaa structure kan hadda ku jirto dabcan structure kan laga sugayaa inay soo dhacdo halkan ay correction ku timaado halkan ay ka samso wax laho qaab structure liya ku timaado kadibna barta ku kala wareegto ay samso wax laho laba taabo show plus double bottom hoose mini double bottom hoose kadib mini double bottom hoose ay ku timaado qaab correction dabcan kadibna all the way la buy gareeyo ama inay halka ku timaado wax laho 9 full-ka halkan masha allah haddii inbaas ku timaado minis way sii deynaysaa waxay taabanaysaa double bottom hoose double bottom-kana haddii hoose taabatana waxaa laga yaabaa haddii correction hoose ku samayso dabcan inay
another structure kale samayso oo ay u gudubto wax la dhaho mine double bottomka hoose kadibna all the way bartaas lacagtan aan dhulka la eegno wareejiyo dabcan propel oo way structure xageen ku ka laabo isbedelo lacagtan okay meesha aan propel ka dhigin xagee ahayd halkan ahayd dabcan halkan ahayd okay maxaa dhacay impulse lagu yimi waxa correction laga samayn haddana all the way lasii dhaadhacay xagee la aadayo waxaa dareemay in loo socdo waxa la dhaho here in loo socdo xagee halkan okay maxaa dhacay halkan markii la tegay iyadana dhulkii maxaa dhacay in qaab correction ah sidoo kale lagu soo dhacay oo lasna wax mini double boom means waxa waaye fiiri halkan waxa ka dhacay waa double boom la jabiyey haddana waxaa la cunay double boom hoose haddana waxaa la sii cunay double boom hoose means lacagtaasi waxay soo jaxlotay mini waa laba min double boom iyo hal double boom hoose la cunay waxaa ii caddaatay rejection ka dalba meeshan ka dhacay all the way lacagtan ka laabanayso all the way maasha allah si qurux badan ay ku laawday waa la socday iyadana maasha allah waxaan rajaynayaa insha allah in ay sii dhaqaaqi doonto lacagtaas ilaa ay gaari doonto halkaas haddii ugu yaraan ay dhaqaaqi doonto loo weeye ilaa 5% structure lahaan hadaa 4 hour time frame ka tago caadi ahaanta inay structure qurux badan ku dhaqaaqi doonto laga yaabo insha allah iyadana waan arkaynaa dabcan haddaan u gudbo lacagta kale xigta iyadana lacagtan isbuuci dhaweyd iyadana wax dhaqaaqa ma aysan muujin oo abaan ka sugaynin dabcan hadda waxaad aragtaa in samaysay qaab structure leeyahay samaysay waxaa laga yaabaa inay correction all the way way baxsatay maxaa dhacay all the way way baxsatay geen ka sugayay halkaa in qaab correction ku tagto kan dheeraysato dabcan halkaa tagto kadibna halkaa laga soo sel garaya laga yaabaa galada ku darajaada selka kadibna qaabkii halka ku timaado la arko haddii qaab impasse ku timaado means trailing inay nagu fiiso haddii qaab correction ama structure layer ku timaadana structure layer means waxa ka wadaa descending channel ku timaadana means lacagtaasi inay jihada ay kala wareegto dabcan oo jihada xagga kala wareegto jihada afka waxay samaynaysaa structure kan weyn bay samaynaysaa dabcan all the way okay xageen ka sugayni halkan inay timaado qaab structure ka sugayni waayo halkan baan qaab noocna niri halkaa inay structure ku tagto qaab correction waxay ku tagtay impulsive all the way way sii daysay waxay sii daysay wax loo jihada afka okay iyadana lacagtan waxaa intiri marka qaadan hadda isdiyaarinaysaa iyadana waxaan rajaynayaa inay halkan qaab correction bilaabi doonto dabcan structure layer kadibna all the way ay kusoo geli doonto iyadana qaab noocaasay u dhacday lacagtani maasha allah lacagaada qurux badan bay ahayd inkastoo halkan ay samayso wax laho correction noocana kala 90 ruxin baa socotay kadibna all the way sii daysay anigu gudbo lacagta xigta iyadana lacagtan waxa intriya ima aysan siin because impasse ku jirtay trailing-kan oo jeeday flaggan rajaynaya inay correction geli doonto halkaa correction ku tegi doonto way ku tagtay laakiin correction soo celiyo ma uusan noqon inkastoo hadda uu dhimay wax loo halkan qaab structure lagu tagto double token laga soo celiyo diran xaggan laga soo celiyo iyadana aad u qurux badan weeye dabcan waxaan jecel yahay in laga sidoo kale halkan structure-kan ku dhacay waa la socday laakiin structure qurux badan inaa uusan noqon structure falcon way la noqday marka iyadana wax trade ma ka qaadan oo waa iska dhaafay hadaan ugu lacagta lacagtan caadi ahaanta halkan markay soo samaynaysa waxaan waa la soconay halkan retest ku samaysay dabcan video korean ku sharaxay oo sharaxayo marka propel maxaa lacagtan ka sugaynaa inay halkan timaado oo ay qaab halkan impasse dib soo dhaafto means hoostiisa inay correction ka samayso kadibna all the way soo dhacdo another correction kale soo dhacdo correction kale dabcan oo qaab structure layer meeshan ku timaado kadibna meesha laga kala celiyo ilaa jihada looga diro wax laho jihada afka ilaa ugu yaraan wax laho ay dhaqaaqdo wax laho tarigtkooda waa 40 bib ilaa trailing-kaas oo ah 90 bib ugu yaraanna ilaa 260 bib haddii waxaan oo dhan ay impasse kusoo dhaafto means hagee propel halkan ama trailing-kan inay 90% ay ka laabanayso xaqiiqada dabcan iyadana qaab structure layer halkaa ka day halkan ma ka laaban kartaa wax dhaho tana iyada
waatana lacag way isdiyaariyeen caadi bay isku diyaariyeen maxaa dhacay xagee ka eegin lacagtan halkanaan ka eegin qaab noocan ay samaysay way soo dhacday 90 markii buuxisay qaab correction all the way xagee tagtay halkaas maxaa dhacay all the way in lasoo daata dhacay daadashadan wax intriya ma ka qaadan okay maxaa dhacay 90% waxaan ku yiri waxay buuxinaysaa waxa weeye correction kan haddaad video ugu laabatid 90% waxay buuxinaysaa correction kan sababta ay buuxinaysaa waxa weeye structure kii soo dhamaystiraysaa waayo structure kan iyo kanba labadaba ma dhamaystir kan weyn iyo kanba labadaba ma dhamaystirna maxaa dhacay in all the way lasoo buuxiyey qaab correction lagu soo buuxiyey all the way la jebiyey xagee qaadan lahaa markii halkan jebisaan qaadan lahaa wax intriga ka qaadan lahaa laakiin ma aysan jebin maxaa dhacay all the way ma aysan jebin maxaa dhacay structure kala dhacay another structure kale waxaan ka qaatay jebinta yar all the way lacagtani abc aaday masha allah haddii ay soo noqon lahayd sidoo kale ay correction ka wadi lahaydna means xagee tegi lahayd halkan another kale sidoo kale high probability si ahaan lahayd okay maxaa meesha kaaga soo urmay head and shoulder inverted kaaga soo urmay masha allah lacag aad u qurux badan bay ahayd runtii iyadana halkaas qaabkay u dhacday qaabkii aan u doorsanay u dhacday anigoo tixgelinaya waxa dhaho ruleska suuqa ama ruleska strategican partnerska aan u gudbo lacagta AUD card waxaan u badinayaa waxaan caddeeyey lacagtan soo dhaweyd iyadana baan sugaynay dabcan waxaan caddeeyey in ay pure seller tahay dabcan pure sellerna way noqotay waxaana ii kulifay inaan caddeeyo waxa weeye structureka qaabka jirto mine structure guud wuxuu ii sheegayo qaab dhismeedkay ku socoto baa ii sheegaya sidoo kale lacagta hore waxaan ku yidhi 90% halkaasay ka laabanaysa qaabkii aan u sheegay uga laabatay okay taas waxaa sababta waxa weeye inaan suuqa muddo badan ku jiray participant sameynayay maskaxdaydu la qabsatay meelaha sometimes xitaa waxaa arkaysa aniga waxaan arkaa trado aan qaatay caadi ahaanta waayo waxaan og yacni mar kasta yacni waxaan yacni ogahay xilligii lacag kala laabanayso xilligii jaada aadayso xilligii yacni kala laabanayso waayo waxa weeye ku celcelinta badan baa waxay sababta waxa weeye in aan ogaado lacagtan inay all the way ay sii dhacdo inaan ogaado sidoo kale lacagtan waxay sidoo kale waxay samaysaa laba taabasho trailers iyo double waxaan ogaan karayaa in lacagtaas structure samaysan karayo waayo waxaan ogahay waxa weeye qaab waliba ay samayso haddii qaabkaas samayso qaabkaas u noqonayo iyadana masha allah waa waxyaalaha lagu sheego oo experience weyn oo yani muddo badan boo jaartiga qofkaasi ku jiray okay aan dhaqaaqan markuu dhaqaaqay waan ogaa laakiin maanan gelin oo lacagtan waxaan ka sugaya waxa loo jihaa selaan ka sugaya inay halkan ku timaado qaab correction way dhici karaysaa oo retest ay ku samayso waxa laho here kadibna bartaas qaab structure layer la sameeyo kadib qaab structure qaab noocaas la kala sameeyo ascending journal kadibna lagu soo kala wareegayo jihada salka lagu soo aaday idina qaab noocaas kale aan ka sugayaa okay tan chartiga ku laaban qayb badan oo sela waan diray laakiin the structurally qaabkii u soo dhacday aan eegno waa kan qaabkii u soo dhacday all the way structure ku sheegay waa kan structure qaabkan aan ku sheegay waa qaabkan ahaa meeshan qaab structure samaysay all the way soo dhacday flagii damaan ka qaatay all the way ilaa down so hadda percent wax way aan ka xirtay oo ay soo laabatay iyadana lacag qurux badan bay hadaan u laabto lacagta loo xigta dadkii barta jibinta kasoo qaatayna way ka faa'iideen laakiin aniga waxaan ka qaatay wax loo jibintii halkan badan aan u gudbo lacagta xigta waa AUDJPY lacagaha aan aadka u jeclay ka mid tahay waxaan filayaa inaan halkan lacagtan ka qaadanay ilaa hadda aan iri waxay ordaysaa ilaa 170 bib waad ujeedaa 170 bib oo waadixay orday laakiin waxaan ka rajaynayaa lacagtan inay qaab correction meeshan ay samayn doonto dabcan kadibna qaab correction ay samayn doonto kadibna correctionkaas lagu soo kala celin doono lacagtan oo jihada salka loo soo diri doono waayo double top descending expanding ay samayso dabcan laba taabasho double top all the way inay dhulka soo geli doonto insha allah maxaa dhacay dabcan inay samayso waxa la dhaho meeshii aan ku bilaab yani aan iri inay correction ku bilowday dabcan qaab correction kusoo dhacday aad ujeedid qaabka correctionka bay samaysay all the way
waxay i caddaatay in double tubkan la jebin karin oo yacni correction lagu jebiyey lasoona daadan doono. Maxaa dhacay? Pure flag baa dhacay all the way lacagtii toos ay usoo dhacday. Lacagtii toos bay usoo dhacday ilaa wax ku dhow 85 pip bay dhulka soo gashay. Iyadana lacag aad u qurux badan bay ahayd. Maxaa halkan ka dhacay haddaad eegtid dabcan structurally in bartii automatic loo kala celiyey kadibna all the way jihada looga diray. Iyadana wataasaa lacagta ku xigta aan u gudbo. aan ka sugayaa jihada selka dabcan caadi ahaanta waayo structure weyn bay samaysay dabcan qaaqday halkan impulsive correction ay gashay haddana impulsive correction kale dabcan correction yacni naturalkii impulsivekan waxaa lagu tegay qaab correction ah alrajeynayaa lacagtan in ay soo dhaca xogaa laabato structure ku dhamaysto dabcan laba taabashay joogtaa double top samayso all the way dhulka soo gasho dabcan ilaa xagee imanaysaa ilaa halkaas ay imaato واضح هذا قرب بدن طبعا structurally طبعا هذا كده كان triple top واضح حد كاغا مقدس sidoo kale qaab structurally lagu tagay macquul ma tahay in madaxa la baxo macquul way tahay laakiin goorma madaxa la bixi karaa waxa madaxa la bixi karaa markii structure-ku uusan dhamaystirnayn طبعا hadda sidoo kale ma la bixi karaa ha waa la bixi karaa qaab noocyo lagu la bixi karaa waxa lagu la bixi karaa way in structure la dhamaystiro laba taabasho plus double top kan structure lagu tigi karaa qaab structure ka samaysmin karaa iyadana mar waliba waa inaad wax waliba ay samayso aad og tahay lacagtan oo gudbo lacagtii aan zeri jeeb way iyadana maxaa dhacay qaabkan kuu sheegnay madaxa ula baxday xaggee double top ahaa yarba double top ahaa waxay samaysay all the way in madaxa la baxay qaabkan kuu sheegay kadibna all the way lasoo dhaatay ilaa tradingkii dabcan aan kuu sheegay hadaad video dib u daawatid targetkaagu noqdo tradingkan dabcan all the way inay soo dhacdo wax ku dhow 90 pip inay soo dhacdo iyadana lacag aad u qurux badan bay ahayd kanoo kale iska qaabdo wax muhiima ma tixgelinayo kaliya muhiimad waxa waaye ogtahay iyadana all the way way kala laabatay sababtay kala laabatay waxa weeye iyadana kuu sheego iyadana trading kan iyadoo tixgelinaysa qaabkay ku socoto qaab structurally all the way in la tegayo naturalkaaga dabcan inkastoo data yacni aad ka qaadatay wax laho maxaa la dhahaa profit targetkooda ay ku hit garaysay dabcan iyadana lacag qurux badan bay ahayd dabcan waxaan rajeynayaa inaad dabcan ka faa'iidaysateen lacagahan dabcan masha Allah dad badan way ka faa'iidaysteen oo way la soo wadaagaan way privately masha Allah saa badan ku faraxsanahay dabcan inay suuqan yacni ay saaid uga faa'iidaan oo ay lacag joogta ay ka sameeyaan iyadana masha Allah markooda ilaahay maxaa iskale marka labaadna iyaga oo waqti geliyey ku kalsoonaaday dabcan baa iskale mahadda waxaan rajeynayaa insha Allah inaan caawin doono dad badan insha Allah ayna ka faa'iidi doonaan dabcan waxyaala badan aan u sheegayo aad baan ugu faraxsanahay dabcan inaad ka faa'iidaysataan waxaan rajeynayaa insha Allah inaad sii share garin doontaan si arday badan oo u baahan in looga faa'iideeyo ay mataqaanaa ay uga faa'iidaystaan dabcan ayna fursad ugu noqoto dabcan aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga saaid baan idinku mahadcelinayaa salaam Allah